السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسيني كان كهري وحنا كوبر نهاية سيدي لوسو ديوان قرينة dadka macaamiishaada adiga aad waxsiisidee agaabta ka qaata wax ka iibsada shaqada aad u qabatid ama aad shaqada u qabatid bal marka halkan tan intaynu iska xidhno macaamiisheena marka shaqadii aynu bilowno oo shaqada aynu bilaabayno waxaynu leenahay midalan qof macmiilkeena aanu yimid agaab uu naga iibsaday marka waxaanu sameynaynaa wax la yiraahdo yani agaabtii isi lacagtiina hoo yani waa iib cash iibku laba mid buu kulli noqon in cash wax lagaaga iibsado oo imika lagu yiraahdo lacagtiina hoo agaabtana isi iyo in lagu yiraahdo agaabta isi lacagtoon keeni doona oo amaahdaas bal marka iibka cash-ka aynu sameynaa marka iibka cash-ka halkan waad ka sameyn karaysaa oo halka home page keena home screen keena halka waad ku dhufan karaysaa waxa kale oo ka sameyn karaysaa hadaa halka customer keena tigtid customer marka sida ugu dhufatid halka inter sales receipt ay ku qoran tahay yaad halka iyadana ka sameyn karaysaa marka balan ku dhufana markaad ku dhufato sidan buu ku soo saaraya window-gan halkan geeskan horta isagu waa summary oo qofkan haday jiraan imika midna markaan qofka horta aan soo doorano qofkan waxa laga iibsanaya waa ninkan aan idhaahno ninka markaan sida ugu dhufano summary uu nasiinaya imika ahaan waxa ma jiraan laakiin wixii haduu open balance jiray lacag ku lahayn haday jirtay sales order oo u baahan in la invoice gareeyo haday jiraan xagga uu ugu soo qori iyo wixii aad ugu tafaasiil transactionadina dhexdhacay laftooda xagga ugu soo qori laakiin imika ma jiraan wax hore marka taa aan iska xidhno si aynu meel masaaxa u helno okay qofkii markaan soo xareyno qofka horta halka ka soo dooranaysa shaqada horeysa qabanaysa qofka soo dooro marka qofka soo doorisid items itemka aad doonaysid inaad qofkan siisid itemka aad doonaysid inaad ka iibisid marka wuxuu naga doonayaa bariis buu doonayaa inaan ka iibin bariiska description xagga ma sameyn karaysa description yaad sameyn karaysaa oo bariiskan wuxuu yahay wax saas halkan imsuu ka doonayaa intuu ka doonayaa waa imisa marka imika inuu midna markaynu ku dhufanay waxaanu nidhi on hand waxaan haysanaa 600 baan haysanaa uu buuxa marka waxaan leenahay 200 ninka ka iibi 200 ninka ka iibi marka 200 xabuu naga doonayaa baan nidhi 200 marka qiimahani rate-kan waxay ka dhigan tahay inagu mar walba waa waxaynu siino waa waxaynu qiimaha inuu ku iibino weeyaan marka markii hore aynu vendoriska aynu shaqadaynu aynu soo qabanaynay mar rameynaan xareynin costiga iyo rate-ki waxa meynaan soo xareynay sababtoo tahay marka aynu agaabaha soo xareysanayna ay tamiyada markaad xasuusataan markaynu soo xareynaynay waxaynu soo sameynay costiga intay nagu joogaan iyo intaynu sii siino labadaba waan soo xareynay hadii intaas aad soo xareysay in ka badan hadaa doonaysid inaad siiso oo imika 200 baynu siinaabaynu nidhi hadaynu doonaynaba inaynu siino maanta 250 halkan baad gelinaysaa dhib male waad ka bedeli karaysaa waxaa jirta hadaa xasuusataan iyada lafteeda price level baynu soo sameysanay price levelkii hadaa doonaysid inaad qofka halkan ugu sameysid oo leedahay intaas qiimo dhimisu samee qiimo sareys oo ku dalac hadaa doonaysid inaad doonaysidna halkan baad ka sameysanaysaa base sales price kaasi waa kii saxda ahaa aynu markii ku soo qoronay intaas oo dhan marka waa halkan waad ka qaban karaysaa oo kama dhigno on kii aynu markii halkii ku soo qoray baa waajib inaynu raacno kama dhigno way halkan baad ka bedeli karaysaa lafteeda marka xagga wuxuu ku sameynayaa halkan qiimaha aad siinaysid iyo agaabtan intuu isugu ka dhufto iyo amount-ga xagga ku dhigaya marka amount-gu ku total gareeyana halkan buu ku soo dhigaya marka xagga sare haddaynu invoice sameynayno haddaynu sales receipt haddaan sameynayno wax walba oo sameynayno window walba oo furno xagga sare ilaa way iskaga mid inta badan marka bal si aynu tan u fahanno si aynu kuwa kale waqti ugu qaado aynu yani waqti badan aynu inooga qaadanin tan isla fahanno maynka markaad ku dhufatid halkan labadan arrow waa laba kala jeeda tan waxa ka dhigan tahay tii hore itus tan waxa ka dhigan tahay tii dambe itus nagasta ku xigtan halkan faan hadaa doonaysid inaad message gareysid oo mid soo baadhid receipt hore maartay sales receipt hore aad doonaysid inaad baadhid halkan baad ku dhufanaysaa hadaa doonaysid inaad new tiraahdo new waxa ka dhigan tahay halka hoos hadaa arkay safe new da bay isku shaqo yihiin oo watan save kale mid jadiidan ay fur
oo mid bannaan oo kale ii fur waxba ku qoreen haddaad doonaysid inaad save garaysid sales receipt waa inaad save garaysatid baad doonaysaa dib ugu soo laabatid ama waxaad doonaysaaba inaad si PDF ahaan u save garaysatid waad karaysaa delete-kan haddaad doonaysid inaad iska delete garaysidba isaga dhanba waad karaysaa okay haddaad doonaysid inaad copy ka samaysid copy baad ka samaynaysaa haddaad midna ka waran qofkan maalin walba uu ka qaataa ama bishii waqti gaar uu ka qaataa haddaad doonaysid inaad email gareebad leedahay ii xafid si maartay mar walba meeshan mar walba ma sameeyaa kan si mar walba ana agaabtan u buuxbuuxinin imika inuu hal ma qoray waxa laga yaabaa haddii agaabtu fara badan tahay mar walba buuxbuuxinteedu inay kugu adkaato marka ii xafid baad leedahay markuu ku xafido toos baad u imanaysaa oo uu ku wala gelinaya agaabtii oo ku diyaarsan okay calaamadda yar waxay ka dhigan tahay mark as pending waxay ka dhigan tahay haddaan imika sales receipt-kan imika haddaan calaamadda ku dhufto on tigta ku dhufto on sax siiyo nama tusayo reportiga nama tusayo oo sales receipt waa jiray nama oranayo naga khabaynaya ilaa aynu ka qaadno tan marka taas calaamaddaasi waxaad doonaysaa inaad midna ba tidaahdid wali processka lagu jiro qofkan arrintan way socotaa hana tusin warbixinteeda marka aan arrinta dhammayno warbixinteeda na tus tig baad siinaysaa ma soo post garanayo kula sales receipt-ka ma soo post garanayo okay markaad arrintiisa dhamayso shaqadan ay dhamaato yaad ka qaadaysaa marka waxaad leedahay isoo post garbaad leedahay taana saas ka dhiganta printing haddaad doonaysid inaad soo print garaysid hakaar baad kusoo dhufsanaysaa haddaad doonaysid inaad email ku dirtid tigtaa waad saaraysaa markaa waad sidaa ku diraysaa isagan haddaad doonaysid inaad faylal aad kusoo darto kan jiraanna waad kusoo daraysaa okay formatting isaga maxaa noogu jira formatting waxaa noogu jira haddii midna doonayna preview sida uu egyahay inaan eegno sales receipt sida uu egyahay insha Allah waxaynu sameyn doonaa imika waa si yar oo iska bilow mar walba aan haddaan invoice sales receipt wax walba aynu sameeyno waa si waa noocan laakiin waxaynu sameynaynaa insha Allah mar aynu ka bedeli doonaa halkan horta shirkadeenu kulli waxay leedahay looga jirta shirkadaadu looga leedahay loogada sida xagga soo dhigi lahayd sida qoraalkan hadaad doonto aad meel weer bedeli lahayd sida waxyaala keena bedelina si ay waxoogaa mid yar qurux badan u noqdo okay marka taana waa saas marka kuwana imika wataynu sheegaynaa haddaad doonaysid inaad edit garaysid template-kii imika la tusay haddaad doonaysid inaad edit garayso wax kaga bedesho waad samayn karaysaa kan iyo waa isku mid iyaguna waa iyagoo edit garaynaysid temple-kan meesha noo yaala oo markaan preview nirkiina la tusayaan kan haddaad doonaysid kuwa jeedid inaad soo shubato waa soo shuban karaysaa spelling-kan haddaad doonaysid inaad waxyaalo fara badan oo English waxbaad meelahan boqortay iga jeegareebaad leedahay inaad khaldayn kale waad ka jeegareynaysaa insert line baa jira halkan imika line haddaan imika saa u dhufano online ii geli yiraahdo xagga sare line buu soo dhigi haddaan line-kii iga tuurbaan lahayd imika ii gelisi haddaan doonay inaan line-ka copy baan leeyahay meeshaan doonay inaan ku copy midna halkaan doonay inaan copy paste baad leedahay marka halkaa ii soo dhig marka iga tuurbada haddana line-kii leedahay waka kuwaan saa u shaqeeyaa haddaynu soo socono markaa sanad kuwan iska soo dhaaf meeshaad ku shiib garaynaysa ama ku diraysa reports baa jira reports kan calaamad daayir baa u dhaxaysa calaamad daayir waxa ka dhigtaa wixii xaggan ka waa caam oo kan kuma saabsano kuwana waa kuwa ku saabsan ama la xiriira qofkan macmiilka ama receipt-kan caadiga ah imika quick report hadda doona halka aan ka galeynaa payment-iga iska soo dhaaf yadan searching-kan waa xaggan ku soo aragnay haddaad mid baadhaysid okay xaggan waa qofka magaciisii xaggan waa template-kan isticmaalayna waa kii caadiga ahaa ee madarata ay noo sameeyeen iyagu inagu maynaan customers garaysin taariikhdan la sameynayo baalkan haddayna taariikhdaas ay wad bedelaysaa halka maartay company-ga lagu loo geenayo agaabta oo maartay maxamedka company-giisii sales receipt-ga imika receipt hormeynaa sameeyno marka waa number 1 marka sida uu kugu wadayaa 2 3 mar walba oo sameeyso isaga taa shaqada ku qabanaya haddaad doonaysid inaad shaqo kale halkan lambarradan inta badan dadku lambar waaweyn bay isticmaalaan imika waxa leedahay 1001 yani halka uu kaaga sii balaayay 1002 saa uu kugu wadaya check number hadduu jiro waad gelinaysaa xaggan hoose hadday jiraan customer-kan message aad u qoraysid oo u raacinaysid
waxaad leedahay halkan baad kuwan baad ka dooranaysaa hadduu mid jadiida yahayna waad gelinaysaa haddaad doonaysa inaad maalan kaa gelisid saas oo kale wax meema ah oo doonaysa inaad ku xasuusato markii warbixinta markii maalan reportskan loo soo dhigayo meemo aad doonaysa inaad ku xasuusato halkan baad ku qoranaysaa marka bal inta aan sameeyno marka maxaynu sameeynay 200 oo kiisha oo bariisa baynu ninka ka iibinay marka lacagta inta la egna waynu ka qaadanay marka aan save close aan niraahno okay marka save close niraahno bal hadda bariiskeeni waxa iska bedelaan eegno bariiskeeni halkan maxaa ka baxay 600 baa noo taalay oo halkaas way yaraaday makhsankeeni halkii inventory-geenu uu yaraaday okay reports ka intaan imanno bal aynu eegno waxa aynu shirkadeena faa'iideedu maanta xagga ay marayso maadaama aynu wax iibinay okay sales waka kontonka kumaana soo galay oo waa kii aan iminka sameynay discount marna loo sameeyay hadda xasuusataan iyaguna income-ka maanta inta baa noo soo ziyaaday haddaad doonaysa inaad ku sii dhufato ogaato waxa saleskan wuxuu ahaa waa lagu sheegaya Maxamed Axmed yaa waxa lagu leeyahay waxaad ka iibisay agaabtaas yaa ka iibsaday waa undeposit waan arki doonaa insha Allah wixii marka sida waxaynu ku baranay sida aynu u sameyn lahayn iib agaabtii isi aduguna lacagtii hooyo yani waa cash waxaad cash ku iibsanaysid oo kale okay marka aynu agaabtaa sameynay lacag baynu qabanay lacagtan xagee la geeyay lacagtii aynu qabanay imika maynaan arkaynin meel ayna leeyahay lacagtan xageed geynaysaa wax la weydiiyay mayna jirin lacagta waynu qabanay okay bal haddaad xasuusatiin mar aan idin oran jiray payments keena tagno and deposit fund maraan ka sheekeyn jiray ma xasuutaan waa lacagta aadan wali meel la gelinin yaa halkan lagu sii gelinayaa taabay ahayd okay halkan haddaan imika ka qaadno bal hadda daawo haddaan imika halkan ka qaadno on okay niraahno iska wala xidh halkii noogu laabo sales receipt bal noo dhig okay bal halkan dib noogu laabo halkan dib noogu celi hal mar waa keenii hore marka sida halka noogu celisay halkan ma joogin markii hore halkan khaanada yar ma banaaneen maxaa baneeyay khaanada waxaa baneeyay oo imika khiyaar lagu siinayaa lacagta ninkan aad ka helaysid halkee dhiganaysaa baa leeyahay isagu markii hore shaqo wuxuu noo qabanayay inuu kan noo dhigo behind the scenes buu ku shaqeeyaa programka waxaan adu ma ogid laakiin programkani shaqo badan buu xaq hoose iyo adu ma arkaysid laakiin hoos ahaan shaqo badan buu kugu qabanaya marka nama weydiinin halkan يعني halkee dhiganaysaa sababta tahay isaga automatic noogu soo dhigay markii hore inuu ilaan u sheegno aynu nidhi halkan noo soo dhig okay bal hadda markaa si uuna mar walba halkan noogu dhigo inagu halkii uga qaadano waxaynu leenahay halkii noogu celi oo halka un bal noo dhig marka hadda kadib naga wala xidhay okay marka halkii lacagtii uu noo dhigay sidaynu inagu uga qaadnaa mar walba aynu lacag qabanno waxaad arki doontaa screen-kayga waxaad kala soconaysaa halka yar warqad baa imanaysa warqad baa ku soo dhacaysa halka imika xabad warqada taal haddaynu lacag fara badan qabanno mar walba lacag qabato halkan lacag baa imanaysa halkan maxay ka dhigan tahay marka halkan waxay ka dhigan tahay lacagtii aad qabatay and deposit fund bay ku taallaa meel aan wali lama deposit gareyn inay deposit gareen okay no deposit gareen lacagtii waa tan marka lacagtii aynu imika ninka ka soo qabanay waatan halkan okay marka okay tidaahdid waa Maxamed iyo ka imatay and deposit fund halka account-kaabana ka imatay account-keed dhigaysaa marka bal aan iraahno saving account-keena noo dhig lacagta kontonka kuna saving account-keena noo dhig hay marka halkan waa taariikhda dhigaysay halkan waa meemo haday jirto oo doonaysid inaad inta waxa leedahay lacagta wax waa wuxuu doonaysid marka report-ka joogto inuu kugu xasuusiyo okay marka dariiqadu qofkan ku bixiyo waa cash ku leeydi amount waa intaas xaqan hoos hadaad eegaysid markaynu nidhi halka account-keena saving noo dhig may jirtaa lacag cash oo markaynu intaynu bankiga intayna lacagta geenin bal lacag cash oo ka soo ceshanayno oo leenahay
intaan jeebada soo gashano mooye intaa kale noo dhig yacni konton kun bay ahayd maalan 10 kun baan jeebada soo gashano oo nidhi intan baan soo ceshanay 10 kun xagga mad ku qoraysaa waxaadna ugu qoraysaa sababtii aad u soo ceshatay iyo aad waxaad ku xasuusatid iyo 10 kun halkii ku galayso waxaan leenahay maalan kaashkeena khasaanadeena inoo gashay halka baad iyadana gelinaysa ama haday jiraan yani waxaad ku isban garaysa adu yani halka baad gelinaysaa akoonka u tagayso lacagtani lacagta ba ileen software kaami yeelayo lacag baan qaatay meel ma geyn kaami yeelayo meel aan ku ugu xisaabiyo keemka kule okay marka waxaan leenahay saving keena nooge save and close baan leenahay marka okay cash keeni hadda la socoteen saving account keeni marka hoos oo taas ugu dhigo kale saving account keeni 5 kun baan noogu jirtay konton oo ku soo daray 5 ku soo noogu noqdo marka maanta darsiga muhiimka bal xagga aynu ku joojino insha Allah bal darsigeena labaadna sidii amaahna looga qaadan lahaa bal aynu eegayna hadii la yiraahdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi.